kulankan oo maanta ay yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha majority oo ku ah degmooyinka Sablaale, Kurtunwaare iyo Qoryooli oo dhammaan ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegeen in habraaci saxda ah ee dawladnimada aan loo marin magacaabista xubnaha maamulka saddexdaas degmo. Waxa ay sheegeen in hal beel kaliya ay maamusho saddexdaas degmo, waxaana ay sheegeen in mudnaanta koobaad ay leeyihiin beelaha Darbana, Duuba, Digil, Garre iyo sidoo kale beesha Tuni. waxay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka dalbadeen in si degdeg ah uga jawaabaan cabashadooda. maamulka saddexdaas degmo oo hadda ka jira waa maamul gacan karimis ah oo saddexda beelood raalanka ahayna ogol waxaan sheegaane gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Siidi iyo la hadlaane ilaan usilayo awaamiirta koowaay وبعد waxaan sheegaane wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Laftagareen Cabdicaziz adi iyo wasiirka Hilmaanteen sadadaan degmo hadda la sheegayo Koonfur Galbeed ma ka tirsanyaa amaleeya hadii ka tirsanyaana Hilmaanteen waxa siin ka rabnaa sida in ka dhaqsiyaha badan sadadaas degmo maamulka ka jiro maamul lan dhanyana ma maamul gobol gacan ka ramis waay saddexda degmo hadeer la magacaabayo oo saddexda beelood halka iskugu timid beesha Gare iyo beesha Darbane iyo beesha Tuni runtii aad bay u dulman yihiin waayo dhulka hadeer la sheegay dadka dhulka waa wada leeyihiin isna waa kala deegaan hadina nin walba meel buu ku magacaaban yahay ma aha in mataqaana qolo kale lagu maqiiqo oo la dhaho xagaas adaa ka soo magaciisa waxay noqonaysaa taas dadkii walaalaha in la isku keero ama is arkaan dhibaatooyin meesha ay ka dilaacaan marka sidaa darteed waxaan baaq u direynaa maamulka South West inta ugu sareyso oo waajibka u leh inay wax maareeyaan Qoryooli iyo Kurtunwaare iyo Sablaale maalinta u horeysay laga hadlay ma ahan waxa la yiraahdaa hadal ha laga maqlo ku celi ha laga barto waxaan ugu celinaynaa warkan in la barto ujeedkan ka leenahay shirkan jaraad wuxuu ku saabsan yahay inaan kaga hadalno saddexdaas degmo yuuna ku socdaa madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen madaxweyne waxaan ka rabnaa cadaalad manhin dad dulminaya odayga hadii ilmihiisa ay kala cabtaan ninka ka cabanaya in loo kala garqaado kii qaldan la qabto ay waalid xaq u leeyahay waa dadka majority-ga ka ah waxa anaga aan leenahayna cidna kama baryayno cidna kagama heebeysanayno waxaan baaqan u diraynaa Cabdicaziz Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaan baaqan u diraynaa Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi waxaan idin leenahay shirkan shirkii ka horeeyay waa idin la hadalnay waxbaan idin sheegnay waxbaan idin kala hadalnay jawaabtiina ma aanan arag markii labaad waaye odayaasha leergaradka culmaa u diinka antaba waxa ay ka hadlayaan aayaha degmooyinka la sheegay ba maanta xaqooda maqan xuquuqdooda maqan oo doodsan oo dhacan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziz Laftagareen iyo golihiisa wasiirada iyo xukuumaddiisa iyo gudoomiyihiisa baarlamaanka waxaan u sheegaynaa annagoo ah dadka oo degmooyinkaas gobolka Shabeellaha Hoose oo Soomaali South West ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta Cabdicaziz inaan annagu gooni u goosano ama magac kala yeelano Cabdicaziz oo adiga ayaa namuday odayaasheenna inay qiiriyadaas u hadlaan ama dhacnaadaan ama dulmeysanaadaan ama xabad maanta ayagu ay dagaal u soo istaagaan maanta idinka ayaa gaarsiiyay ugu dambeyn kulankan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban inta ay tahay taariikhda bish September 10 2021 oo halkaan isugu imaaday beelo kala duwan beelaha Garre iyo Tuni iyo Darbana, Duuba, Digil ay warmurtiyeed halkaan laga soo saaray oo ah warmurtiyeedkaas lambar 1 maamulka KGS waxaan baaq ugu diraynaa saddexda degmo Qoryooli, Kurtunwaare, Sablaale
ee ku magacaaban inaysan ahayn dadka mudnaanta iska leh waxaan rabnaa in saddexdaas degmo loo bedelo si degdeg ah. lambar 2 haddii la bedeli waayo oo loo magacaabi waayo beelaha mudnaanta iska leh degmooyinkaas wixii ka dhaca waxaa mas'uul ka ah maamulka KGS. beelood kuma qanacsana maamulka ka dhisan saddexda degmo Qoryooley, Kuntuwaarey, Sablaale. lambar 4 oo ah haddaan nahay beelaha Garre iyo Tunni waxaan codsanaynaa in la siiyo beesha Darbane xuquuqda ka maqan heer federaal, heer state, heer degmo. Ibrahim Maxamed Mayuuraadiyaha iyo telefishinka Dalsan. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.